تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وللذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك قد فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal sidaad ogtihiin bishii ramadaan waxaa inooga dhiman wax 3 usbuuc iyo wax lamid ah. bishaana runtii waxa ay leedahay oo wanaag iyo khayr iyo barakaada nagama qarsoona. 3 usbuuca ka dhiman sidee baan ugu diyaar garownaa bishii ramadaan, oo bisha ramadaan ay noogu timaadaa inaga oo diyaar u ah ilaahay dembi dhaafkiisa iyo cafiskiisa iyo xoreynta jannada uu ka xoreeyo adoomadiisa intaba aan u heli lahayn. runtii arinta ugu muhiimsan waxa way walaalayaalow, bini aadan baan nahay, tamarteenu iyo awooddeenu waa daciif. ilaahay subxaana watacaala isaga awooda in uu bishaana gaarsiiyo oo na waafajiyo khayrka inaan ka faa-iidno, in marka ducada aan barino ilaahay inuu nabadgelyo noogu gaarsiiyo bisha ramadaan oo noogu kaalmeeyo markaan gaarna kabacdi soonkeeda iyo cibaadaadkeeda kale fara badan. maxaa yeelay walaalayaal, ducadu sideedii waxay u tahay cibaado, oo nebigu waatuu lahaa calayhi salaatu wassalaam xadiiskii uu soo gurinaya abi daawuud oo saxiixa ahaa, adducaau huwa alcibaada, ducadu iyada cibaado ah. yani adoo salaad tukanayo oo kale oo soomayo oo kale cibaado ku jira bay la mid tahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam. runtii taas inaynu badino ilaahay baryadiisa, gaar ahaan awqaada iyo waqtiyaasha ilaah ducada u ajiibo, habeenkii qeybtiisa dambe, aadaanka iyo iqaamada dhexdooda, marka roobku da-ayo, ducada waalidka, inaynu aada u badino ilaahay ou nabadgelyo nagu gaarsiiyo caafimaad bisha ramadaan. talabaadna waxay walaalayaal, haddii baynu ku dhowaano ilahay na gaarsiiyo inaynu ilaahay uga mahad celino. maxaa yeelay imise qof baa bishan khayrkeeda iyo wanaageeda iyo in yar uga dhimantahay laga cunaqabateeyey oo qabri gale oo ka hadhay. haddii markii aynu gaano inaynu ilaahay subxaana watacaala ugu mahadino oo ilaahay ugu shukrino, ilahay wuxuu qur-aan ku leeyahay waqaliilu min cibaadiya shakuur, addoommadeeda in yar baa igu shukrisa oo iga mahad celisa wanaaga iyo khayrkan u galay. waxaan ku qaabili karnaa walaalayaal in aynu bishan farax iyo reynreyn aynu sugno, oo maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu xadiis saxiixa ku lahaa, jaaءakum shahru ramadaan shahru mubaarakun kataba allahu calaykum siyaamah fiihi tuftaxu abwaabu ljana watuqlaqu abwaabu ljinaan watuqlaqu fiiha abwaabu jaxiim. nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wassalaam, waxaa idiin soo galay bishii barakeysneed ee ramadaan ee soonku waajibkan ku ahaa, ilaahayna uu furayay albaabada jannada oo dhan oo la xidhayay albaabada naarta. qofka marka faraxaas iyo quduumka ilaah wuxuu u diyaariyey oo nimcada iyo barwaaqadaas ah, runtii inuu kusii farxo, oo runtii wax badan oo adduunaynu ku farxana. laakiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala,
aayad qur'aan ku leeyahay fabiraxmati ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa fabidaalika falyafraxu in lagu farxo islaamka iyo iimaanka iyo tawxiidka iyo ilaahay abaalmarinta u bixina jannooyinka in lagu farxo buu ilahay tilmaamay inay khayr badan tahay in marka aynu bisha u aragno bil fursad iyo jaanis ah oo ilaahay inoo keenay oo aynu fursadda uga faa'iidaysano arrinka afraad runkii muhiimka waxaa weeye in aynu niyadda iyo qalbiga goyno bisha inaan ka faa'iidno yacni inaysan inaga noqon sheeko oo kale rabadaan maxaa ka dhiman 2 usbuuc 3 casho 2 casho inaysan inagu imane ay naga ahaato go-aan qalbiga kasoo go-ay inaynu bishaa ku talagal in laga faa'iidaysano baryadeenna u baahan go-aan oo diyaargarowgeena u baahan go-aan oo faraxeena u baahan go-aan maxaa yeelay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat meesha wax kasoo go-aan ee wax ka xidhmaan waa qofka qalbigiisa in marka aynu arrintaa go-aansano sanadka maanta ah bisha ramadaan inaan qaabilno oo si fiican u qaabilno yaysan af naga ahaane inay ficil naga noqoto insha allahu tacaala waxaa ku xiga oo runtii iyana muhiima bisha ramadaan in lagu qaabilo in la barto xakaanta iyo cilmiga ku jirta yuu ku waajibayaa soonku yuusan ku waajibeyn yaa afuraya goorma la afuri karaa maxaa jabiya maxaa soonka xoojiya maxaa soonka dhiba yacni qofki inuu barto axkaamtaas oo dhan inaan barano oo maxaa yeelay ilaahay waxaa lagu caabudaa subxaana wa tacaala cilmi qofku jaahilnimo iyo isaga suu jecelya inuu ku fikero ilahay kuma caabudi karo subxana wa tacaala waa inaynu baranaa maanta wax kastoo sahlan yihiin iyadoo duuban baa la helaya culimada oo ka hadlaysaa la helaya cilmiga soonka oo dhan waa inaynu ku talagalnaa inuu noqdo cilmi in u diyaargarowno diintuna waa diin cilmi walaalaya qofka ilahi wuxuu ku caabudayaa cilmi inuu barto ilahi ku caabud nabiga calayhi salatu wasallam wuxuu ku leeyahay faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambik nabi maxamedow calayhi salaatu wasalaam waxaad barataa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay keligii marka aad barato kabacdi waxaad la timaadaa maxay dembi dhaaf ilahay inaa weydiisatid innaga soonka waxaa ka horeeya inaan cilmi u yeelano goormuu soonku soo galaa goormuu bilaabmaa goormuu qofku bilaabmaya goormuu u dhammaanaya bilow iyo dhammaadka inta udhexaysa maxaa laga rabaa maxaa u banaan maxaan u banaanayn maxaa soonkiisa dhibaya maxaa soonkiisa xoojinaya inahaasoo dhan waxaa la doonaya walaalayaalow inaan u yeelano cilmi iyo aqoon waxaad ogtihiin maanta waddankan aad joogno iyo wadamada kale wastareenka aba qofna shaqo laguma siiyo ilaa laga jeegareeyo inuu shaqadan aqoon u leeyahay 60 هاسا وجرا دقيتينا كان داوة جرت كنتي بي ان shaqada inuu aqoon u leeyahay weliba hadda aqoontu waa sii dhaaftay waxaa la isku xiraa maxay experience qofka inuu leeyahay waayo aragnimo dheer suurtagal ma tahay marka inaynu wixii adduunka ahaana aynu ku dadaalno inaynu xaqiijino oo ka dhabayno oo cilmigiisa aynu yeelano ilaahaygiina abuurtay subxaana wa tacaala ujeedadu inoo abuurtana ay ahayd in isaga caabudno inaynu baran weyno cilmigiisi iyo aqoontiisi cilmiga runtii sharaf wuxuu ku leeyahay cilmiga ilaahay lagu barto subxaana wa tacaala nabigiisa lagu barto calayhi salaatu wasalaam diinta nabi maxamed lagu barto cilmiga marka walaalayaalow khasab ma aha inaad sheekh noqotid laakiin waa inaad baratid soonkan wax allaaliyo wixii aad uga baahan tahay maxaa ku kordhinaya khayrka maxaa ku farabadinaya maxaa kaa yareynaya khayrka maxaa ilaahay ku dhaweynaya maxaa waajib kugu ah maxaa sunno kugu ah maxaa xaaraan ka ah maxaa karaahiye ka ah waxyaalahaas oo dhan walaalayaalow waxay u baahan tahay runtii inaynu waqti gelino oo aan uga faa'iidaysano runtii bisha ramadaan in aynu cilmi iyo aqoon u yeelano waxaa runtii iyana ka mid ah oo aada u muhiima in bisha ramadaan aynu ku qaabilno qalbi nadiifa oo cad ku qaabilno lanna alla wuxuu leeyahay ina allaha yuxibu atawaabiina wa yuxibu almutadahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay subxaana wa tacaala kuwa usoo toobad keena oo dembiga ay galeen iyo xumaanta ka dhacday ka toobad keena wuxuu kaloo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka qalbigiisu waa meel cad oo aada nadiif u ah haddii uu dembi galo waxaa ku sawiranta dhibic madow hadduu ka toobad keeno waa laga titiraa dhibicda madow laakiin hadduusan ka toobad keenin oo mid kale ku daro waxaa fuulaysa dhibic kale oo madow
hadduu kusii daro mid madow ilaa qalbigiisu noqdo qalbi miriray ama daxalaystay oo alla uu leeyahay kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun. taa marka walaalayaal inaan usii diyaarino qalbigeenna inuu nadiifu yahay. taana waxay ku iman kartaa inaan ka warhayno qalbigeenna war wuu cadaayo wuu qurux badnaayo nadiifu ahaaye talo intee in lag baa madow imase dhibcood baa ku taala maxaan maanta sameeyey xaggee ii gashay. yani waxaa la doonayaa qofka mar kasta inuu la socdo qalbigiisa xaaladiisa. iyadaa ka muhiimsan maalin kasta jirkaaga nadiifintiisa iyo qurxintiisa iyo dharka noocu qaadanaya oo ku dadaasha. waxaase kasii weyn oo kasii muhiimo badan walaalayaalow in qalbiga loo diyaariyo inuu bishradan ka faaideysto. alla waxa uu leeyahay yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw-aatikum wariisha walibaasu taqwa dalika khayr. aadam caruurtiisiiyo waxa alla uu leeyahay waxaan idiin soo dejinay dhar aad ku asturataan cawradiina iyo jirkiina. wa alle subxaana watacaala dhar aad ku asturataan cawradiina iyo jirkiina. waxaase kasii khayr badan libaasu taqwa dharka cabsida la yidhaahdo oo qalbiga in la hagaajiya. cabsi marka laga hadlayo waa in qalbiga la hagaajiyo. waa inaynu ogaanaa qalbigeena maxaa dhibic madow saaraya. waa inaynu ogaanaa qalbigeena maxaa dhibic madow ka qaadaya cadaan u deynaya. dhibic madow waxaa saaraya inaad macaasi gashid. tusaale ahaan walaalayaalow saynu u dhannahay dhammaanteen qof kasta wuxuu ku jiraa maalintii facebookaas hadduu nin yahayna waxaa soo maraysa intaasoo haweenah oo qaawan jirkeeda. haddii haweeney tahan waxaa soo maray intaasoo nin ay fiirinayso. nabiguna wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam fiirinta ninka uu fiiriyo haweeney ka xaaraana aan xalaal u ahayn ama haweeneydu ay fiiriso nina ka xaaraana waa gamuun ama waa waran kamida waramada shaydaan isticmaalo. warankaaga haddii la tuuro meesha uu ku dhacay waa qalbigaagii. haddaad maalintii 10 goor aragto wax kaa xaaraana 10 dhibcood umudaa qalbigaaga ku dhacay. haddaad sheeko dhegeysato ama aad sheegto oo dhagahaagu ay maqlaan xaaraana intaasa waxay ku dhacaysaa qalbigaagii. taa markii inaynu ka warhayno qalbigeenna oo sida nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii ka toobad keena waxaa lagu celinaya sidiisii hore. haddii marka aynu dembi galno oo xumaan galno waa inaynu ilaah u noqonaa. waa inaynu garanaa cilada meesha ka timi meesha ay tahay. imaamu shaafici baa waxaa laga wariyaa raxmatullaahi calayhi in uu shiikhiisii wakiic ibnu jaraax alrawaasi uu uga cawday in xifdigii ka xumaaday. imaamu malik ibn anas wuxuu u ishaaray xifdigu waa nuur ilaahay. nuurka ilaahayna lama siiyo qof caasiya. yani wuxuu tilmaamayaa haddii ba khalad kugu yimaado ama adiga dhib kugu timaado ama wax kaa khaldamaan naftaa dib ugu noqo. maxaa ilaahay wuxuu leeyahay wamaa rabuka bidalaami lilcabiid. ilaahay admada ma dulmiyo. haddii reerku kaa xumaado shaqadu kaa xumaato baaburku kaa xumaato waa inaad dib isugu noqota adigu. lan alla wuxuu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kathiir. wax walba oo idinku dhaca waa waxaad gacmihiina ku keensanteen. weliba ilaahay intuu cafinayaa tiro badan. taa walaalayaal waa runtii arrin aada u muhiima in aynu inagu dib isugu noqono. oo haddii wax kaa khaldamaan maxay waxan kaaga khaldameen. nabiga calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin iyo saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim dagaalkii uxud waa lagu jabiyey. dhaawac weyn baa loo geystay. nabiga la dhaawacay calayhi salaam laftiisa. saxaabadiisi baa la laayay rag fara badan. yani dhib weyn baa loo geystay. saxaabad markii dhibtii dhacay waxay dhaheen xaggee wuu ka yimi dhibtaani. ilaah wuxuu ku leeyahay qul huwa min cinda anfusikum. dhibkan wuxuu ka yimi idinka dhexdiina. hadda bal fiiriya waa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo cadow la dagaalamayey oo cadowgii ay jabiyeen. eedii dusha lagama saarin cadowgii waxaa laga saaray saxaabadii. maxaa yeelay waxaad khilaafteen amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam. in la idinka adkaadana waxaa keentay khilaafka aad khilaafteen hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. yani eedda waxay tilmaamaysa walaalayaalow haddiiba ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo joogta eedii dusha uu ka saaray saxaabadii nebiga waxaad garanaysaa inagu inaan ka sisheyno. haddii waxay naga khaldamaan waa inaynaan caban
ama cid kale eed saarin waa inaan isku noqona nafteena waa inaan garan karnaa waxa aan galnay maxay yihiin nin baa laga sheega kamid raggii hore waxa uu yidhi maalintii waxaan aadi jiray shaqo guriga nin baa iman jiray biyaha idhaamiya maalinta markuu shaqadii aaday un baan si kediisa waxaan gacanteeda u taabatay haweeney baan gacanteeda qabtay markaan gurigii imi islaantii waxay u tiri maanta dhib baa dhacay ninkii biyaha soo dhaamin jiray maanta biyihii markuu keenay wuu soo dhaafay oo gacantiisu waxay qabatay gacanteyda ninkii wuxuu yihi wallaahi arrintaas uu sameeyey aniga banaanka kusoo sameeyey haddaan intaa ka badan sameyn lahaana isna uu sameyn lahaa yani fiiri ninkaasi muu dhihin ninka biyaha keena waa khaa-in waa tuug muu gelin iyadii muu maagin laakiin wuxuu gartay in isagu uu soo galay dembi dembigii uu soo galayna uu keenay gurigiisa inay yimaado waa arrinta ah in naftaada adu aad xisaabisid haddii reerku kaa xumaado ama buuq dhasho caruurta kaa xumaadaan shaqadu kaa xumaato dhaqaaluhu kaa xumaado baawur kaa xumaado dib waxaa ugu noqotaa backgroundkaaga maxaa kaa khaldan maxaad samaysay maxaa macaasiyo soo galay maxaa xaaraano kuu soo galay waa in naftaada dib aad ugu noqotaa oo aad sheegaraysid meesha lagaaga yimi waxay odhan jireen raggii hore in aan dembi soo galo waxaan ka garan jiray haweenadeyda iyo daabadeeda aan faraskayga markaan dembi soo galo faraskii miskiinka ahaa oo adeeci jiray cirkaasu aadaya haweenadii fiicineyd oo guriga ii joogtay caro iyo xanaaqi buuq baan gelaynaa yacni markii waxay garan jireen inay jiraan shay soo kordhay oo dhibtaan keenay bal nebigu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ma jiraan laba qof oo muslim ah oo walaalo ah oo isnaca ilaa midkooda dembi soo galay yani ummadda waxa isku diraya madaxa isu gelina dembigii taa marka walaalayaal inaanu bisha ramadaan ku qaabilno inaan nadiifino qalbigeen intaan jirka nadiifino ka badan inaan qalbiga nadiifino oo jirka saaban baan ku dhaqnaa shaan baan ku dhaqnaa waa kala gedinaa biyaad baan ku dhaqnaa bal qalbiga wuxuu baahan in la dhaqo kabacdina waxaa la rabaa jirka marar fiican baa la huwiyaaye qalbigii in la huwiyo tawxiid iyo toobad iyo cibaado la huwiyo taasina marka waa runtii waa qodob aada u muhiina oo ah runtii inaynu qalbi cad oo nadiifa ay inoo soo gasho ramadaantii inagoo haysana waxaa ka mid a runtii waxyaalaha muhiimka ah al-ikhlaasu lilah fi siyaam in aada u barax tirto ilahay raaligelintiisa camalkaaga yacni inaan camalkaaga uusan kaa gelin istustus iyo ha lagu arkay iyo ha lagu ammaano waa inuu ka ahaada mukhlis iyo ilaahay daraadi waa in runtii arrin aada iyo aada u adag oo inay adagta waxad ku garanaysaa shaydaan baa wuxuu yidhi ilaahayo waxaan luminayaa addoommadaada oo dhan ila almukhlisiin kuwa mukhlisiinta mooyaane mukhlisku waxaa weeye inaad hadal tiraahdo ama ficil samayso aada ula jeedo inaad ilaah raali geliso oo aadan bini aadan kaga helin inuu ku ammaano ama uu wax fiican kuu sheego maxaa yeelay bini aadan waa adigoo kale ammaantiisa iyo inuu maanta o dhan wax kuu sheego wax kuu tari mayso ciddii ammaantiisa wax tarayso oo ay anfacayso waa ilahi subxaana watacaala marka soonkaas oo dhan ama ha noqoto aamusnaanta la aamusan yahay ama ha noqoto qur-aan akhriska ama ha noqoto soon cuntadii laga sooman yahay waxa oo dhan waa inay ahaadaan wax ilaah diraada oo samaysay yacni camalku mar kasta oo ilaahay xaggiisa uu nadiif u yahay waa mar kastoo abaalmarintiisu ay weyn tahay hadba niyadaada sida ay khaalis u tahay oo nadiif u tahay oo ilaahay darti keliya u tahay baa ajirka lagu siinayaana mid la eg u yahay taa marka walaalayaal in aynu hubino maxaa yeelay way ka biqi jireen salafkii camalkooda inuu soo galo istus maxaa naftaa waxay jeceshahay in la ammaano oo kor la geeyo naftaa jecel taas marka inaan ka cararno oo nafta la dagaalano oo naftan maya waxna waa cibaado ilaah baa iskale ilah baa kaaga rajeynaya amaba ilaah baa inu nahay ilaahay oo ku baryayna tamar ma hayno xeelad ma hayno camalka aan samaynayno ee soonka ah ee salaada ah ee sadaqada ah ilaahay waxaad nooga dhigtaa mid adiga daraada keliya aan sameyno yani ilahay u kalmaysa subxana watacaala muhiimaddu waxay tahay walaalayaal uun ikhlaasku aad buu u khaldamaa yani ikhlaaska iyo ikhlaas daradu aad ba la isugu khaldaa adigoon wixii uu ku talagelin bay kuusoo dhumanaysa mathalan tusaale sheegaan culimadu waxay dhahaan nin baa wuxuu maqlay geed meel ku yaala oo ilaahay keyrkii lagu caabudo dabeedna ninka wuxuu go-aansaday inuu geedkaa soo gooyo
wuxuu soo qaatay masaar ama gudin buu soo qaatay isagoo meel dhexe maraya waxaa ka hor yimi shaydaan oo iska soo dhigay qof caadiya wuxuu ku yihi xaggee u socotaa wuxuu yihi geedkaa oo ilaahay keyrkii la caabudo baan soo goynaya Akan gabbaraman Allah malinjiru Khawan ume hunda firesani hiru Hojinti yayamu ilmana ma hunda Gabbarti birarra fara rabbi gudda جرون الدنيا تنبرت صباتي تخيست وارا تن آخراتي والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بي والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بي shaydaanka wuxuu ku yidhi geedkaas wuu badan yahaye ma goyn kartide haddaa isaga goys mid kalaa jire ma iska daysid ninkii intuu qabtay shaydaankii oo qof oo kale ah buu kala tuuray wuu socday shaydaanka haddana wuu soo wareegay ninkiiba u yimi wuxuu agee u socotaa wuxuu yihi geed meesha ilahay keyrkii la caabud baan soo goynaya wuxuu inu talan kuu haya haddaa geedkaa goyso kuwo kale oo badan baa jira ma kula tahay inaan ku siiyo habeen kasta $40 aan kuu geliyo sariirtaada madaxeeda 20 sadaqayso 20 isticmaal laakiin ku ilaalin geedkan ninku wuxuu wallahi waa tala fiican saasan yeelaya wuu iska noqday gurigiisuu tegey shaydaankii barkintu wuxuu u geliyay $40 habeenkii labaad uu geliyey habeenka saddexaad wuxuu ka goostay 20 ninkii waa cadhooday wuxuu soo qaatay gudintiisii ama masaartiisii wuxuu soo aaday geedkii inuu soo gooyo isagoo meel dhex maraya baa waxaa u yimi shaydaan oo suurad kale leh markaasuu xaggee u socotaa wuxuu yihi waxaan doonayaa geedka inaan soo gooyo wuxuu yihi ma soo goynaysid wuxuu damcay sidiisii intuu qabto inuu kala tuuro isaga waa la kala tuuray ninka wuxuu yihi see ku dhici kartaa shalayna waan kaa adkaaday maanta waan iga adkaatay wuxuu ku yidhi shalayna waxaa u soo baxday ilaahay daraaddii iyo geedka inaad goyso maantana waxaa u soo baxday $20 aan kaa goostay yacni fiirsha ikhwaani geedku waa geedkii ninku waa ninkii qasadka iyo ujeedadu waa iyadii wadadu waa wadadii intu waa isku mid maxaa kala duwanaaday marna niyadda iyo ujeedada waxay ahayd ilaahay daraadii marna waxay ahayd xogaa shimaada laga goostay in marka isa ka dhex darsamin oo aad acmaashaada oo dhan ilaahay keliya u dis subxaana wa tacaala adiguna runtii aad ma aragtay ku dadaashid inaad ilaahay barisid ilaahay subxaana wa tacaala uu camalkaaga ikhlaas ka dhigo waxaa kaloo runtii muhiim walaalayaal aada u muhiima waxa la yihahdo salaamatu sadri in qalbigeena uu muslimiinta nadiif u yahay yani daacad u yahay qalbigeenu oo in muslimiinta xiqdi u qabin oo nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaa naga filan runtii xadiiskii nebigu uu lahaa saxaabada isagoo la jooga iridda waxaa kasoo geli doona in ahlu janno ah saxaabadu way fiiriyeen nin baa soo galay ninkii way garan waayeen dadka caanka la yaqaano safka hore fadhiista qur-aanka xifdisan ma aha haddana nebigu maalmaad buu ku celiyey waxaa kasoo geli doona albaabkan in ahlu janno ah maalin saddexaad buu ku celiyey nin saxaabi ah wuxuu dhaha ninkan kulli nin aan naqaana ma ah bal aan soo ogaado xaaladiisa wuu dabagalay dhowr cashuu la joogay wuxuu arkay ninkii ma salaad badna ma soon badna ma cibaado badna cibaado iska beysigu cibaadaystaa wuxuu ku yidhi ninyaho waxaan maqlay nebiga oo dhahaya calayhi salaatu wassalaam ahl jannaa tahay maxaad samaysaa wuxuu yihi wallaahi inta aad aragto baa cibaadayga ah laakiin waxaa ii wehelisa habeenkii ma seexdo aniga oo qof muslim qalbiga wax uga haya saxaabigu wuxuu yidhi midka jannada aad ku gashay annaguna aanu gaari weyna waa kaas yani fiiri ikhwaani ninkan looma sheegin inuu qur-aanka o dhan yaqaano lama sheegin inuu shiikh ahaa lama sheegin inuu maalinka soomi jiray lama sheegin inuu saatuleel tukan jiray jannada ilaahay wuxuu ku galay oo ilaahay ugu abaalmariyey isagu inuu go-aan qaatay ah qalbiga inuusan habeenkii seexan isaga oo qof muslima wax uga haya arrintaas runtii waa arrin aada iyo aada muhiim ah inaynu ku dadaalno laba faa'iido way leedahay waa mari horta habeenkii waxaad seexanaysaa hurdo macaan raaxa leh maxaa yeelay
qalbigaagi baa cad oo nadiifa dagaal aan ku jirin. laakiin haddaad dagaal gasho oo hebel ka argoorso oo hebelaayo saa ku samee ma seexan kartid. ta labaadna waxaa weeye de waxba lagu helayaa janno ilaahay subxaana watacaala. waxaa runtii iyana muhiim walaalayaalow aynu ku qaabili karnaa bisha ramadaan inaan ka fogaano waxa ilaahay uu necab yahay oo shirkiga iyo gaalnimada iyo bidcada iyo xaaraanta, riba ha ahaato, sina ha ahaato, wax kale ha ahaato, inaan ka fogaano. maxaa yeelay suurtagal maaha in koob biyo ay wada galaan, biyo iyo dab wada galaan, way isdiidayaan. ilaahay waxaan rabaa inaan caabudo, xaaraan oon dhex fadhinaya iyo wixii gaalnimo ahaa ma shaqaynayso. waa in aynu nadiifka ahaanaa. qofka muslimka ah hadduu rabo inuu ilaahay caabudo waxa kale o dhan nafka. laanna waxay yidhaahdaan haddii hadda aad ka soo qaad tahay injineer guryaha dhisa oo dharkii guriga aad ku dhistay aada guriga la timaadid oo tiraahd markiiba dharkaas ka bixinaya waxaan gashanayaa suud iyo taabaan gashanayaa, dee waxaa kaa soo baxaya wixii aad kasoo shaqaynaysay. laakiin inta aadan gashan dharka fiican, jirka nadiif marka hore, markaad nadiifiso oo carfiso, markaad marada fiican gasho. waxaa la mid ah ilaahay tawxiidkiisa iyo diintiisa inaan marka hore nadiifino nafteena, ka nadiifino shirki iyo gaalnimo. waxaa ugu dambeysa walaalayaal oo muhiim ah in aynu ku talagalno inaynu afurino dad, ama hanala joogaan ama meel kale ha joogaan. leanna nabigu wuxuu sheegay alayhi salatu wasalaam qofkii qof muslima afuriya in ajarkiisoo kale uu leeyahay. aynu dabeecad ka dhigano inaan midkeenna afurin ilaa in cid kale ay u timaado mooye, siday salafku ahaayeen. ama ha ahaato tuuladii iyo magaaladii aad ka timi inaad ka afuriso, ama ha ahaato guriga inaad ka afurisid. in runtii aan ugu diyaargarowno in aynu diyaarsano soonkaagii inaad hesho 5 qof oo kale soonkoodii aad hesho, ama 10 qof aad hesho, aad hadba inta ka awoodi. yacni qof dhan oo muslima oo soomaya oo laga yaabo inuu kaa cibaado badan yahay, oo kaa quraan badan yahay, oo kaa toobad badan yahay, haddaad afuriso intii ajar uu qaatay in laina qaadanayso buu nabigu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. in marka taan ku talagalno walaalayaal oo aynu noqono dad deeqsiyiin ah oo bishaas ramadaan ka faa'iideysta. intaas baan odhan lahaa runtii kelmadeydii inaan u diyaar garowno. waxaan ka baryayaa ilaahi subxana wa tacala isagaa qaadir ah inuu na waafajiyo. wasala allahuma calaa maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد. أستغفر الله أستغفر الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا